Lowsku waa geed nagaara oo aad u waxtar badan, dad badani ay aad u jecel yihiin. Inta badan waxaa la arkaa dhalinyarada markay ku caweynayaan goobaha maqaayadaha ama sida u taqaani baararka inay aad u cunaan, balse aysan ogeyn sirta ku jirta lowska. Sidoo kale, lowsku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo laga helo oo weliba muhiim u ah caafimaadka jirka bini'aadamka. Warbixin uu ka diyaariyay website-ka caafimaadka ka faallooda ee Mareykanka laga leeyahay la yiraahdo Healthline ayaa lagu sheegay in faa'iidooyin fara badan oo jirka aadanaha muhiim ah laga helo lowska, sida borotiinka omega 3, fiber, kubar, fitamiin B12, phosphorus. Sidaa darteed, in la cunaa ay u wanaagsan tahay caafimaadka. Warbixinta ayaa waxay intaasi raacisay in lowsku u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha iyo in miisaanka dheeraadka laga lumiyo jirka. Bukaanka sokorowga qaba u wanaagsan yahay siiba sida u taqaanin macaanka. Dumarka uurka leh u roon yahay waxa uu jirka ka ilaaliyaa cudurro fara badan. Faa'iidooyinka uu leeyahay lowsku aad ayay u badan yihiin. Daawadaha qiimaha badanow, haddii aad daawanaysid janalka Cabdulaahi Colombo ama sidoo kale page-ka, waxaan kaa codsanaynaa inaad flow saaratid, sidoo kale subscribe-tan aad saaratid. Haddaba daawade, waa maxay sirta ku jirta lowska ama faa'iidooyinka uu leeyahay lowska? Maadada carbohydrate-ka ku yar lowska waa cunto u wanaagsan dadka qaba sokorowga. In la cunaa waxa ay faa'iido u leedahay in dhiigga jirka lagu nidaamiyo, lana naxadeeyo kor u kicis, waxaana laga helaa borotiin, dukis iyo fiber muhiim u ah bukaanka sokorowga qaba. Wuxuu u wanaagsan yahay dumarka uurka leh. Waxaa ku badan maadooyinka cunto ee muhiim u ah hooyada iyo ilmaha uurka ay ku sido. Waxaa laga helaa borotiin, kubar, niacin, folate, magnesium, fitamiin B, folic acid, oo dhammaantood maadooyin muhiim u ah caafimaadka hooyada uurka leh, ilmaha yaryar ee uurka ku jira u roon. Lowska waxaa laga helaa kubar badan. Marka la cuno, waxa uu yareeyaa cudurrada wadnaha. Waxaa ku badan oo laga helaa fitamiin E, wuxuu xoojiyaa difaaca jirka si xoog badan, waxa uuna ka hortagaa cudurrada difaaca jirka waxyeeleeya. Jirka wuxuu ka ilaaliyaa cudurka kansarka maxaa yeelay waxaa ku badan antioxidantska oo jirka ka ilaalisa cudurka. Waxa uu yareeyaa lowska cudurrada dareemayaasha, wuxuu ilaaliyaa habdhiska dareemayaasha, wuxuuna yareeyaa cudurrada ku dhaca siiba sida u taqaanid habdhiska taranka. Wuxuuna yareeyaa in qofka keliyaha iyo kaadi haysta ay dhagaxaan fariistaan. Marka si joogto ah loo isticmaalo lowska, waxa uu yareeyaa cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, wuxuu ka ilaaliyaa dhibaatooyinka cudurrada ku dhaca. Lowska cunistiisu waxay gacan ka geysataa heerka kolestaroolka dhiigga. Daawadaha qiimaha badan, waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ka heshay barnaamijkan YouTube-ka Cabdulaahi Colombo inaad subscribe saaratid. Isku day sidoo kale page-ka Cabdulaahi Colombo inaad follow-da saaratid, iyadana ha hilmaamin haddii meeshaan aad kala tagtay faa'iido cajiib ah.